dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool dalka Koonfur Afrika iyo madaxda safaaradda Soomaalida ee dalkaasi ayaa magaalada Pretoria waxa ay ku qabteen kulan amaba xaflad lagu weyneynayo maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed oo ku beegneed 15 May. madaxda safaaradda iyo waliba ururada dhalinyarada ee ka qayb galay munaasabadaasi waxa ay ka hadleen ahmiyadda dhalinyarada ay u leeyihiin dib u dhiska dalka Soomaaliya. wariyaheenna Idruus Cabdi Xasan ayaa warkan magaalada Pretoria ee dalka Koonfur Afrika inooga soo diray. xalfad si heer sare loo soo agaasimay oo lagu maamuusayay 73 sano guuradii ka soo wareegatay xilligii la aasaasay ururkii dhalinyarada Soomaaliyeed ee SYL ayaa lagu qabtay magaalada caasimadda ee dalkan Koonfur Afrika ee Pretoria waxaana munaasabada ka soo qayb galay madaxda safaaradda Soomaalida ee dalkan Koonfur Afrika dhalinyaro waxgarad iyo aqoon-yahano waxaana munaasabadani soo qaban qaabiyay ururka dhalinyarada Soomaaliyeed ee Pretoria intii munaasabada socotay ayaa waxa hadallo ka jeediyay waxgaradkii ee dhalinyaradii ka soo qayb gashayna u duceeyeen dhalinyaradii SYL ee u soo halgamay xorriyadda iyadoo dhanka kale dhalinyarada maanta kula dardaarmay inay la yimaadaan fikir wanaagsan oo wax ka bedela xaaladda maanta dhalinyarada Soomaalida ay ku sugan yihiin. Miyaha dhalinyarada Pretoria Xarbi Cabdi Xasan oo munaasabada ka hadlay ayaa sheegay inay siday u samaysan lahaayeen mustaqbal wanaagsan ayna nooleeyaan maalintan qiimaha badan ee 15 May oo ay tahay maalin mudan in la xuso. Somali National Youth of South Africa. xafladan oo aan u soo qabanay ama u talagalnay SYL عوضها ليو هلا توصل مسكح ويش تيسيو حمات هالسيلو وحاول إلى نافو أو ناب أو اختار الشيء صوت الشيء كيف هذا الجواب وفروا دولة جديدة ومعناها وجميع هاي كلام محمد سياد بره شغالي بالدوس على كوراديو هذا ضوء إلى هذا ولكن الإيطالية دولة وقيبسماها هيدها هي تعليم سفارة الصومالية ee Koonfur Afrika mudane Cabdi Xalane Xirsi oo ka hadlay munaasabada xuska 15 May dhalinyarada ku booriyay inay ka fogaadaan qabyaalada wuxuuna ugu baaqay inay mudeedaan isla markaasna wax ka bedelaan aayaha mustaqbalka dhalinyarada Soomaalida. dhalinyarada maanta waa inay ka fogaadaan qaadka iyo qabyaalada. qaran amba dawlad waa system la wada ilaashado. So saxma put your contribution is mine. كتر صوتك كاغا نوابو كتر صنايا ساسا كورسنا هدي فولس واغر جري او هيد قرن ان wax laga sugo oo ayagu ay wax keenaan hay'aata munaasabadan lagu xusayay maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed ee SYL ayaa waxa lagu soo bandhigay heeso iyo ciyaaro hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed kuwaas oo dhalinyarada ku baraarujinayay inay midoobaan dadkooda iyo dalkoodana wax u qabtaan. Idruus Cabdi Xasan TV عالمية Universal Johannesburg Koonfur Afrika.